mudana ka tirsan baarlamaanka kumeel gaadhka ee dalka Soomaaliya ayaa isagana maanta dacwadi waxa uga bilaabantay maxkamad ku taala wadankaasi Norway isagoo oo lagu eedeynayo inuu dhinaca kaalmad deeqeed uu fidiyo ururka dawladda kumeel gaadhka ee Soomaaliya ka soo horjeeday ee diriirtu ay ka dhaxayso ee Al-Shabaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxa wadanka Norway nooga soo diray wariyahayaga Marsin maalinimadii shalay si rasmi ah uga furantay magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway maxkamadan ayaa daba socotay kadib markii sanadkii 2007 lagu xiray ninka Soomaaliga bartamaha magaalada Oslo isagoo lagu eedeynayay inuu taakulayn dhaqaale uu fidiyay ururka Al-Shabaab. ninkan maxkamadda lagu saarayo magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa waxa uu ka mid yahay baarlamaanka dalka Soomaaliya. qareenada u doodayay ninkan Soomaaliga ayaa sheegay in eedeynta lagu soo oogay ninkan Soomaaliga ay yihiin kuwa ka fog xaqiiqda. Under både bevisførselen og vår prosedyre får fram at han ikke har gjort noe som i strid med norsk lov. waxay kaloo qareenadu ay sheegeen in Soomaaliya dhibaatada ka jirta ay tahay mid aad iyo aad u liidata xaqiiqdana inay tahay qof kastoo Soomaaliya qaxooti ku ah qaaradan Yurub khaasatan dalka Norway ay tahay in eheladiisa iyo qaraabada qoysaska uu ku leeyahay dalka Soomaaliya uu ugu diro taakulayn dhaqaale in wax jira in aysan ahayn kiiskan oo kiis hadda uusan ahayn oo dhacay in 2008 in wadankan lagu xiray aan muddo 4 bilood oo wax dhiman aan ku xirnay isolation aan qolkaliya saaxin jiray in secondly kiiska in oo qosay xilligii joogistii Itoobiya Soomaaliya ee la joogay kacdoonkii shacab aan kaga hor imaanay Itoobiya in waxaan isku haysanaa marka kacdoonkii shacab ee Itoobiya kaga hor imaanay ma sharciba ama sharci ma kadib arintan argagixisay maxkamadda lagu saarayo magaalada Oslo maanta ayaa waxa ay booliiska dabagalka dalkan ee khusayso arinta argagixiso ay sheegeen inay dhageysteen 170 telefoon uu ku hadlay kuwaasoo lagu baarayo in arinta lagu eedeeyay argagixiso ay Hussein ku leedahay. Xasan Raasto telefishinka caalamiga ee Universal Oslo Norway. Mahadsantahay Xasan. inkastoo aanay dagaal ka jirin maalmahani magaalada Muqdisho caasimadda wadankaasi Soomaaliya haddana sida uu ku soo waramayo wariyahayaga nooga soo warama magaalada Muqdisho Kamaal Xasan Cabdi dagaaladii dhawaanahan ka dhacay magaaladaasi ayaa waxa ay kaga tageen dhibaatooyin baaxad leh oo dhinac walba saameysay ha noqoto dhinaca gaadiidka ha noqoto dhinaca dadka iyo daryeelaanta iyagu haysata. Kamaal tani markay dib u bilowdeen dagaalada xiriirka ee galay toddobaadkii saddexaad una dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda kana dhacay magaalada Muqdisho ayaa ka saameeyay dhinac walba dadka shacabka ah wadada dabka